waqti dheer ah aan isla shaqaynaynay aan isla helaynay aan ka sheekaysiinaynay xaafadan wax u fiican aan u qaban karno idinka aan ku fekerin rashiid waa shakhsi iyo siyaasi dadka yaarba jecel una dagaalam aniga magacay waa naasir waxaana matalaa xisbiga soosalka rashiid waxaan isla shaqeynaa kumuun fulmagtiga kumuunka waa gobolka Stockholm 1 milyan oo qofood aa degan degmada yaarbana waxaa degan 100,000 oo qofood dadkaas masuulkooda aan u dagaalamay markaas kumuunkana waan ka shaqeynaa xaafadda degmadana waan ka shaqeynaa nambaraha yaraa rabaa inaan siiyo 1 Juuli markay ahayd spontaneous rinkebishista waa isku daray 100,000 oo qofood degan waa degmada ugu balaaran marka laga halayo geography ahaan iyo miisaanad ahaan degmadaas waxaa ku yaalo 5 center 800 oo shaqaalo intaas gudoomiye waxa uu ah Rashiid waxay tahay rabaa inaan ii sheego 100 korona hadda miiska soo saaro 30 ka mid ah boqolkiiba 30 ka mid ah 30 korona waxay aadaa canshuur wax alla waxa canshuur idinka bixisiin boqolkiiba 30 waa idinka jirta xaqmaka waxa u leedihiin inaad ku dagaalantiin canshuurtiina idinka jirto si loo isticmaalo mas'uuliyadaasna waxay imaadaa dadka siyaasiyiinta waliba dadka imtalayo ay doorteen u doorteen degmada waayo degmada waxay gacanta ku haysaa adeega bulshada waxaa soo galo nadaafadda waxaa soo galo adeega ilmaha waxaa soo galo adeega waayeelada waxaa soo galo culture-ka waxaa soo galo skoolalka wax alla wax adeeg ah qofka asaasi u baahan yahay xaafadu degan yahay ayaa soo galo intaasna waxaa u ah gudoomiye xaafadeena Rashiid وانا سر شقينا حسبيدا دن waa meesha ku matalno waa iska warheena waxaan u shaqeynaa dadkaas degan xaafadda waxa u fiican oo adeeg karno oo u fiican dantooda wax yar waxaan rabaa inaan ka taabto guusha aan soo gaarnay guusha Rashiid iyo aniga aan soo gaarnay ama xisbi ahaan Mansuur Ismaaciil iyo dad badan oo saxaaba ah meesha ku fadhino waxaan ka soo gaarnay 15,000 oo laagan heter in yaarba laga dhiso 2026 15,000 oo guryo ayaa laga dhisayaa degmada dagaalka ugu horeeya meeshaas ku bilaabay Rashiid Faadumo aniga Ismaaciil iyo dad badan waxaan u dagaalamnaa in guryahaas la dhisayo 5 qol in noqdaan way baahida dadka meeshan degan aan ognahay inay baahi badan u baahan yihiin buundada highway-ga Yuulista hadda aragtiin Yuulista agteeda meesha highway korkeeda buunda laga sameeynaya korkeeda waxa laga dhisayaa guryo badan oo 5 qol ah waana haddeertana ee dhismaysa marka guulalka saas aan u dagaalamnaa guulashaas inaan gaarno waayo dad badan aan ognahay baahidaas u baahan in 5 qol ay helaan oo ilmaha u baahan yihiin in qol uu ku nasto oo heli karo lagsiisna ku samaysan karo waxaan rabaa inaan ii sheego xitaa degmada marka la isku daray oo rinkebishista iyo spontaneous isku daray imtixaanka ugu horreysay aan la marsiiyo waxay ahayd meesha laga xukumayo degmada xaguu ku yeeli doona Rashiid iyo aniga waxaan u dagaalamnay in ku taalo meesha ugu baahi badan 800 shaqaalood inay ka socdaan oo ka shaqo galaan waxay noqotay tenista waayo waxaan dhahnay qofka shaqada ka shaqeeya degmada markuu shaqeynayo xaafadda oo ka gadanayo wayna noqotaa meel oo degmada u fiican baahida meesha ay taalana waa tenista marka aad u dagaalamnay in ay noqoto 800 shaqaalood inay ka gataan
ka socdaan ku baarkeeyeen baabuurada ay laga arko laga dareemo meeshaan magaalo iyo xaafad nool inay tahay dadaa rabin dadaa ka soo horjeeda laakiin u dagaal waana ku guulaysa saa ogtahiin xaafadda kuma oolin meel laga xukumo meel buunto loo maraayo yuulista dadka yaqaanay aceyrta loo aadi jira oo hawd ku yaal hadda waxay noqon doontaa santarka tenista waana guul ag waayo baahida dadka ognahay meesha ugu baahi badan waxaan rabaa dardaaran rashiid la shaqeeya taageera shirarka ka soo qayb gal tusa inaad taageeradiisa aleediin siiya taageeradiisa ka muuqda waxaa kaloo rabaa inaad dardaaran siiyo faker waxa faker aad rabtiin inaa nii sameyno ama nii oofino usoo dir waxaa jirto waxa la dhaho meed bure dialoog warqado la buuxiyo meed bure kuntuurka laga qaato ay jirto meed bure dialoog ay ku qoran tahay warqadaas buuxiyo waxaas dhahdiin waxaan u baahanaa in la sameeyo ama la saxo ku qor waxay noo imaanaysaa dadka siyaasiyiinta xaafadda fadhiya waa akhrinayna waa nii fulin laakiin talada idinka in ka imaado waa keentiin oo tustiin dad firfircoon aad tihiin ku xisaabtamaya meesha lacagtiina aadeen iyo adeega iyo bulshada mid tayo leh iyo mid aad ku faani kartiin inaynay noqoto marka ka soo qayb gala shirka su-aalo weydiiya foomankaas buuxiya tala la imaado siyaasiyiintuna waxay isku dayayaan waxa ugu fiican oo ay ku dardaaran karaan oo ay ku dadaali karaan inay nii oofiyaan oo nii dadaalaan oo miisaanad iyo lacag iyo wixii alla wixii lagu oofin karo talada inay kala imaadeen inaan nii sameyn laakiin ka muuqda dad muuqda oo la xisaabtamaya dadka aad dooratee noqda intaasaan ku dardaarmaya rashiidna hala taageero السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رشيد صحيف كيوايا وقدومي حافظة رشيد كسرو صعب